Mas'uuliyiinta maamulka degmada Hudad ee gobolka Daawa ayaa soo kormeeray dugsiga hoose dhexe ee xarunta degmada Hudad. Haddaba ujeedada kormeerkan ayaa ahayd mid loogu kuurgalayay guud ahaan geedi socodka waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee degmada Hudad ee gobolka Daawa. Dugsigan hoose dhexe ee magaalada Hudad ayaa waxaa wax ka barta arday ay tiradoodu dhan tahay 2381 arday. Hay'adda badbaadada carruurta ee afka qalaad loo yaqaan Save the Children oo ka howlgasha guud ahaan degmooyinka gobolka Daawa ayaa ku quudisa ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee magaalada Hudad muddo dhan 6 bilood. Gabagabadii kormeerkan ayaa waxa warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV halkaas kula hadlay madaxa xafiiska waxbarashada degmada Hudad Mudane Xasan Nuur Ibrahim iyo sidoo kale maamulaha dugsiga hoose dhexe Mudane Ibrahim Yuusuf Shuqul. waxayna sheegeen in geedi socodka waxbarashada degmadu ay si habsami leh u socoto. saaka waxaan booqanay dugsiga hoose dhexe oo degmada Hudad kormeerkeeni wuxuu ahaa sidii maratay qoodintii ardayda la siinayay baan indhaynay marka degmadan 5 dugsi ba maratay ayada Save Children ba qoodintii siinaysay saaka waxaan aragnay ardaydii maratay qoodintii xunayso oo si fiican maratay lagu talagalay la siinayay iskuulka markii hore tiradii ardaydii oo maaragtay oo yar tahay oo 2183 marka feedingkii la keenay kadib waxa noqotay 2584 marka arday badan baa ka faa'iideysatay ilaa hadda maaragtay arday cusub baa imaanaysa dugsigan marka faa'iidadii feedingii markaas ardaydii maadaama ku darsamayso oo ilaa hadda maaragtay waxa noo yar oo fasalka ardayda ayada Save وما سايهين شقافيان بانو قبتين activity kala duwan baa soo noo qabteen waxa noo keeneen kuraasta ardayda 168 kuraas oo adana laba dugsi oo maaragtay dayactir noo sameeyeen adana waxay jirtay activity kala duwana oo tababarka guddi waalidiinta ha noqotay tababarkii macallimiinta ha noqotay tababar badan baa siinayeen maaragtay oo dhanka barashada waxa jirtay adana oo ardaydii special lead oo baahida gaarka qaba oo qoyskii qoys baa maratay lacag siinayaan lacagtaasna bishi walba waxa siinayaan 2500 marka ayada Save adana waxaan ka codsanaynay maadaama degmadeeni 28 dugsi oo ka jirto inuu maratay nagu soo daraan sidii hadda iskuulkan kale oo maratay ayaala oo ardaydii maratay drop out-igi lagu oo maratay lagu lagatiri laha inoo noo sameeyeen dugsigan wuxuu ka kooban yahay 1 up to 8 tirada ardayda sanadkan laga diiwaan geliyay waxay ahayd 2183 arday kadib markii Save Children ay keentay raashinka ama quudinta carruurta kororka ardayda kor buu u kacay wuxuu tagay 2531 taasoo raashinkii marka bisha loogu talagalay ku filan la ardayda tan kale hay'adda Save waxyaabo badan oo inaga caawisaa jira sida dayactirka qolalka waxbarasho kuraasta ardayda boorsooyinka iyo qalimaanta iyo buwaagtooda dayactir musqulaha tababarro macallimiinta la siiyo oo joogta macallimiin make up ay incentive siiso kuwa special needka oo ayagana si gooni u caawiso kuwa waalidiinta tabarta yar reer tabareedka ayagana ay aad uga caawiso. Bashiir Cabbaas Cali warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV xarunta degmada Hudad ee gobolka Daawa.